السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالي جميل كستاجوبتين سو هذا الشانل كيني حرمت عن تضعف الماتك ولا شيء شكري آدم بوله ولا على المعلومات حربا إن كهلا توبيكو سابسن سانسكرين كحلا ده وكريم أو كعلنا أي قرح لم كبناك لو بحايو waxa ogaadid dad badan ma ka saayaan soo waxa rabaa faa'iidadeedayna ku soo daayay hadhowna in la wadaago wax taro iyo wax kale mid kugu horeyso waxa la dhahay wuxuu hoos u dhigaa qofka inuu ku dhaco skin cancer-ka qaarka cancer ku dhaco ilaahay naga badbaadiye waxa kale la dhahay hoos u dhigaa lahay dadka markay banaanka u baxaan waxa fiican dhaqaatiirta ay markasta kula talisaa waxa la sunscreen aan habixin kareenka soo sunscreen kala dhahayo because qoraxda waxa la dhahay waxa laga yaabaa qorax mar waxa jirto aad u kulul la dhahay waxa laga yaabaa inay qofka bini'aadanka maqaarkiisa ay dhibaato soo gaarsiiso ama damage sida cancer-ka skin ku dhaco kale marka waxa kale u fiican tahay nabaraha acne dadka wajiga ka soo baxa ka nadiifisa waxa kale u fiican tahay la dhahay dadka wajiga waxa la dhahaa inuu gabow ku soo bato qurux ay dadka dhigtaa rag iyo dumar way marsan karaan idna lama dhihin rag ma marsan karaan waxaan waa caafimaad waa medical soo marka waxaan ilaha qoraxda isku dilina dad badan ah arkay meelahan ka madmadow xoogaho waxaas waxay tusaysaa qofka jirkiisa ayaa xargiisa ayaa dilmay qoraxda ugu dhacaysay ama dad waxa arkay xitaa marsadaan banaanka markay u baxayaan faslin ama saliidi iyo hada qoraxda markay qabato jirkaaga damage weyn ayaa soo gaarayo soo inta waxa sameyn lahayd waxaan kula talin lahaa sunscreen doono sunscreen-ka oo dadka waaweyn oo lagu talagalay qofka markuu 40 dhaafo waa kan la socda maamooyinka waaweyn ama even ragga waaweyn way marsan karaan banaanka waxay xiris la marsanaysaa cidna ka fahmaysan xitaa daaw marsanaya iga fahmay cidna ka fahmayso qofka waxa la hay ka weyn markuu qofka 15 sano gaaro kor u dhaafo sunscreen inuu marsado even ilmaha yar xitaa loogu talgalay inay sunscreen ka marsadaan soo kan waxa waaye fiican u fiiriya kaas waxa waaye waxa lagu talagalay dadka oo saliid leheen oo sensitive ka ahayn oo jirkooda normal ka aha oo waxba ka soo baxbixin oo na saliid badan ku jirin oo qaleel badan ku jirin dadka dhexdhexaadka ayaa lagu talagalay all day ala dhaha lotion waxa kale uu leeyahay vitamin B5 uu leeyahay vitamin E uu leeyahay and vitamin C why vitamin B iyo vitamin E and vitamin C vitamin E wuxuu fiican yahay maqaarka iyo timaha vitamin C boqol jeer ayaan ka soo hadlay wuxuu dadka ka difaaca jirka ayuu kor u qaadaa dadka wuxuu ka hortagaa gabowga iyo waxa soo dhan inuu soo degdegin vitamin B na waa vitaminka ugu fiican oo dadka maqaarkiisa loogu talagalay soo waxaas vitamin uu leeyahay soo waxaan dhihi lahaa marsada waxyaalo badan ayuu dadka ka hortagaa qurux yaraan qofka xitaa wajigiisa gabowga iyo waxaas dhan ayuu ka hortagayaa wajigaaga moisturization ku shiraya qofka wajigiisa wuxuu saliid ayuu helayaa because qofka wajiga markasta waa dad muslimiin ayaan hay maanta dhan waa weysaysanayna biyo marsanaynaa banaanka aadayna qorax ayaa nagu dhacaysa okay qoraxda waa caafimaad kun ahaantii hadda ka horna ka soo hadlay laakiin waxa lagu talagalay inaad ka heshid dhinaca wajiga inaad kareenka marsatid hadaa tahay qof oo markaas oil ah ama jirkaaga uu sensitive yahay ama la dhahayo dad waxa jira oo sensitive ah jirkooda oo nabaro iyo waxaad ka soo baxana kana lagu talagalay si fiican u fiiriya asaa lagu talagalay so ani kulli waan hayaa hadaa rabtiin ay la soo xiriiri kartiin hadii kana dhib malaha online ka laga dirsadaa online ka dirsadaa am sidoo badan yihiin xitaa dadkeena Soomaaliyeena ma sha Allah tabarakallah dadku inta badan familiyashooda Mareykan iyo meelahaas ku maqan yihiin halkaas ayaa kala xiriiraysa waxaysa ii soo dira sunscreen ayaa u baahanahay aad ay u tahay muhiim aan dhihi lahaa sunscreen aan habixina run ahaantii hadda waqti dadku wax barteen la jooga oo dadka cilmi barteen waxaan oo dhan marka waxa fiican in dadka isgaarsiisiin oo wax la barto wax ma hada qofkii intuu saliid marsado ama uu marsado faslin uu banaanka u baxo wajigaaga ha damage gareyn wajigaaga waa passport waxa caafimaadka leh markasta ku degdegan ilaha video ka horeysay aan ka soo hadlay vitamin D ayaan ka hadlay waa kan vitamin D-ga tabletkiisa waa kaas soo meeqa waxa laga rabaa in ka cuntid qofka waxa laga rabaa inuu cuno 50 to 100 mega in cuntada laga rabaa soo waa ka si fiican u fiirin kartiin vitamin D-gana halkan kuma soo toobi karo jirka maqaarka bini'aadanka ayuu u fiican yahay soo walaalayaal macaan isla tacaalan dhihilaha sunscreen aan habixinaan dhihilaha sunscreen markasta banaanka u bixisa sunscreen-kaaga hayso because wajiga xitaa nabaraha maxaa la dhahaa qalqaleeca iyo jajabaayo waxaas oo dhan ayuu ka faa'iido u yahay in sinas qoraxda ku gubto hada wajiga meelaha waxaaray wax ka soo baxaan nabarahan iska socda waxyaalahaas dhan ka hortagaya kansarka oo ku dhaca maqaarka
إنه قف كمالها عنده توك صباحا حاصلا أيوك هي عين محل لها وكهر تجايا وأنا ما شاء الله تبارك الله أنا جا وحكة لما مرسنا أني ولا لي كل وضع مرسناه أهانتي صراحة جعل وحكة استانيجا عن مرصدي فاميل كان إن عددك مسلمين تسومالي ذا ولا لياش الملك استجوا عن لا وداقو إنكم مهتسن شجرية سيدتك وقفة إيدستان مش أنا جالس عتين وحرونت أنت عافيماتك وأنا جولاشين والشكر آدم بوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.